بسم الله الرحمن الرحيم waxaa booqasho qaadatay laba maalmood ku soo gaaray wadanka Jarmalka madaxweynaha federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheikh Maxamuud ujeedada safarkiisu waa laba qaybood bay ahayd qaybta koowaad waxay ahayd martiqaad uu ka helay madaxa ugu sareeya dowladda Jarmalka Chancellor-ka inuu la kulmay dowladdiisa iyo shirka loo ka dhacayay magaalada Frankfurt oo looga hadlayay maalgashiga wadamada Afrika iyo Jarmalka oo sanad kasta madaxweyne ka tirsan madaxweynaha Afrika lagu casimo sanadkaana uu nasiib u yeeshay madaxweynaha Soomaaliya safarkii ugu horeeyay maalintii ugu horeysay magaalada Berlin wuxuu kula kulmay mas'uulka ugu sareeya Jarmalka halkaas ay ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada wadan ee Jarmalka iyo Soomaaliya oo ahaa xiriir aad u wanaagsan wadanka Jarmalka wuxuu ahaa wadamadii ugu horeeyay oo aqoonsaday Soomaaliya markii xornimada qaadatay kadibna mashaariic badan ka fuliyay oo Jarmalka wuxuu kamid ahaa dowladdii dhistay ciidamada booliiska samaysay biyo-gelintii Soomaaliya waxay ka qabteen oo kaleeto inay sameeyeen iskuulaad badan oo farsamada gacanta ah waxaan doonaynaa marka madaxweynuhu u yimid inuu xiriirkaas soo celiyo oo halkan baa lagu casumay waxayna ka wada hadleen arrimo badan in dib loogu soo cesho Soomaaliya oo xiriirkii oo maalgashigii iyo wixii hore loogu qaban jiray dib loogu bilaabo maadaama hadda Soomaaliya ay soo maartay kor soo kacday dhinacii amnigan uu hagaagay in maartay loo sameeyo maalgashi iyo wada qabsi labada dhinac ah inay wada sameeyaan badan baa jirta oo la soo gashay miidiyaha oo ahayd in maartay arrimaha qaxootiga Soomaalida dadka Soomaaliya ku nool qurbaha ku nool gaar ahaan wadanka Jarmalka waxaa ku nool muwaadiniin Soomaaliyeed oo aad u badan oo ilaa 65 ilaa 70 gaariya oo wadankan degan ka shaqaysta oo dad sharaf la ah oo maaragtay oo si fiican u degan waxaa jirtay inay jirto dad badan oo yimid oo kaleeto dad jooga oo ayagu markaas isu suurto gelin inay maaragtay wadankii ay la qabsadaan ayaguna jecelaystay inay dib u noqdaan safaaraddii la soo xiriiriyeen dadkaasu dad yar bay ahaayeen dadkaasuna maaragtay qofkii isagu markaas goosta in wadankiisa ku noqdo dowladda Soomaaliya waa fududeynaysay warqadihiina waa siinaysay qayb kale jirtay oo ah dad yar oo Soomaaliya oo xabsiye ku jiray oo dambiyo culus galay oo aan sharciyo lahayn oo xabsiye soo dhameystay dadkaas yar waxay noqotay dib bay ku noqotay xabsiye iskaga jiraan marka waxay noqotay laba dowladood inay ka wada hadlaan dadkaasna loo helo sidii markaas ay nolol u heli lahaayeen wadankoodina ay maartay loogu celin lahaa loola sameeyo nidaamkii markaas ay wadankooda dib ugu noqon lahaayeen ayagoo markaas hela nolol cusub iyo maartay loo sameeyo sidii dib dejin loogu sameyn lahaa wadankoodina ay ugu noqon lahaayeen marka wararka sheegay dad qasab lagu celinayo waxa maartay arrin jirta maaha qofkii isagu markaas diyaar u ah inuu noqdana waa loo fududeynaya oo muwaadin Soomaaliya oo wadankiisa ku noqonaya qofkii ku dhibaataysan xabsiyadana asagana waa loo fududeynaya inuu wadankiisa dib ugu noqdo oo nolol cusub bilaabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.